afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Xuseen Deer ayaa waxaan kula kulmay magaalada Berbera iyada oo maalmihii ugu dambeeyay sidaad wararka ku hayseen magaalada Berbera la sheegayay in dekada magaaladaasi 19% ay leedahay dawladda Ethiopia sidoo kale saasi uu sheegay wasiirka wasaaradda ganacsiga isagoo waramaya idaacada caalamiga haddaba 19ka la sheegay in dawladda Ethiopia leedahay heshiiskii baarlamaanku ansixiyay kuma cadeyn 60% DB walna lagu cadeyn 30% dawladda Soomaaliland lagu cadeyn halkeebay ka yimaadeen 19% ee la siiyay dawladda Ethiopia Soomaaliland baa siisay mise DB wal baa siisay xagad ka keenteen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد عبد الشيخ هذا ما سنتهي قوب جوج بعد هاي الحفلة دي بي ويل كل وريجي سياسي رسمية مرصد عالمي بربرة ورئيسك وسير هو عندك يسي وسيركم مورنين دولة الصومال الآن أيا بقول كي بس عليه طبعا سياسي إثيوبيا وسيركم حيري دولة إثيوبيا واحد لا هاي بقول كي بس عليه طبعا سويدين واحد تياسي شركة عالمية دي بي ويل وحويان سامية بدن بايلة بقول كي بشيل اللي إحنا يدعله بقول كي شنو صدقنا قرن كسومال الآن باله برلمان كنا تاسو أنسحية هالشيء كلا بدر لنعنا واحد كقرن عد سامية بدن له أما عد والبا هدي أي دون يسوي سامية وده عد كلا أي سيسو ويوم الله حبنا أنت بجارهان قول الله له شير هولدر ماجورتي قال ساس تردد إثيوبيا dekada Berbera alaabta ugu faraha badan leh waxa kala degta ama kala soo degi doonta dawladana walaalana Ethiopia waxa weeyaan dawlad jaarkeena waa dawlad wax badan naga dhaxayaan iskaashi dhaqaale kuwa nabadgelyo qayb guud ahaan hadii ay alaabada Ethiopia oo dhan meesha soo marayso waxay noqonaysaa Ethiopia lafteedu inay danaheedii iyo maslaxadaheedu meesha ay ku jiraan ay dhinac si doonto ay u marto saas daraadeed marka su'aashaada ku soo noqdo maxamedow 19% dawladda Ethiopia leedahay maaha dawladda Soomaaliland qaranka Soomaaliland 35% aynu lahayn 16 baa inoo soo haray oo 19 Ethiopia nasin DB World way u madax banaantay in shirkadda dawladda Ethiopia ay siiso ama ay ka iibiso saas daraadeed shirkadda weyne DB World ayaa share kan bixisay oo leh 19% taasoo dawladda Ethiopia ay ku wareejisay taasina xaq bay u leedahay way sharcigu baarlamaanku ansixiyay waddankana sharci baa kala wada sharciga la ansixiyay ma ku jirtaa in awoodda inta leegay wareejinta in dal kale ay shirkadii lagu wareejiyay dekadu bixisaa ay bixin karto xaq ma u leeyahay sharcigu ma qoriya sida baarlamaanku wuxuu ansixiyay heshiis draft oo labada dhinacay isla gaadhay MOU Memorandum of Understanding ayuu ansixiyay baarlamaanku Memorandum of Understanding ana waxa ku qoran heshiis labada dhinacay isla gaadheen hadii aad si fiican u akhrido cid shareholder-ka ee majority shareholder-ka ama saamiga inta badan leeyahay waxa weeye xaq waxay u leeyihiin inay saamiga ay inaga inala galeen maadaama ay yihiin dekada cid maal gelinaysa oo 442 milyan oo dollar ku maal gelinaysa saamigooga qaybta aniga igu soo hagaagta aadamku waxbaan ka siin karaa macnaheedu ma hadda dekadii baa la wareejiyay sheerkii ay DB World lahayd ahaa 65 ayuun bay 19 inta uga soo jirtay Ethiopia ay siisay taasina xaq bay u leeyihiin 16% la sheegay in Soomaaliland leedahay markii la qaybiyay DB World 65 Ethiopia 19 Soomaaliland maxaa ka jiray waa hadal aan saliir raatoona lahayn 16 iyo 19 markaas waa 35 Soomaaliland halkeedii buu yaalaa 65 DB World lahayd ay 19% ay ka go'ayaan shirkadda DB World ayaa iyadu waxay u aragtay maslaxadeeda iyo inay dekadan ballaarinteeda ay u baahan tahay cid wax kala soo degta Ethiopia waa 90 milyan bariga Afrika oo dhan dekada Berbera ay adeegi kartaa ilaa bartamaha Afrika ilaa South Sudan suuq geynta DB World waxa ku xidhan in hesho partner kale oo ay shirkada qayb ka siiso kaasina Ethiopia noqday ma jira shirkado kale oo sida la sheegayo DB World ay ka iibisay shirkii ay dekada Berbera ka qaadatay 60ka marka laga tagay Ethiopia oo wararka ugu dambeeyay ay jiraan in la sheegayo in shirkado waaweyn oo caalami ay ka iibisay shir kale oo ka Ethiopia u dhigmo maxamed wararkaas waa ku tiri ku taan dawlad ahaan
waxaba yaraateena loo soo tallaabo kasta oo d b wel qaadayso waxa khasab ku ah inay qaranka somalilan ay u soo sheegto sababtoo dalka inaga leh dekada inaga leh waynu kiraynay maynaan wareejinin dekada d b wel baynu ka kiraynay haddii aynu ka kiraynayna qaranka asadkiisa iyo hantidii uu lahaa cidna kumaynaan wareejin taa inaga ka mas-uula tallaabo kasta oo ay d b wel qaadayso waxa khasaba inay inala socodsiiyo sidaas daraaddeed wararkaasi maxamed waa ku tiri kuteena waxbana kama jiraan saddex qaybood ayuu ka kooban yahay cidda sheer ku leh marsada berbera waa d b wel oo majority shareholderka oo sheerkeeda Ethiopia wax ka siisay iyo dawladda Somaliland oo 5% leh dhinaca saxdaaba dawladda Ethiopia laakiin dawladda Ethiopia saxiixa kuma jirto sheerkii ay dawladda d b wel lahayd ayuun bay qayb ku wareejisay laakiin labada waxa wada saxiixday ee heshiiska wada galay waa d b wel iyo qaranka Somaliland afayeen xukuumaddu miyay kala socotaa mise wada socotaa adu 19kii waxaad sheegtay in DB World leeday wasiirkuna wuxuu sheegay 19 dawladda Ethiopia leeday oo DB World aduguna siisay marka xukuumaddiina wada socon idinkaan isfahansanayd maxaa culayska inta leegay ku tirkuteenta inta la keenay bulshada waswaaska inta la geliyay horta xukuumaddeedu meel ku kala socoto maana waxaan nahay one team one government and one president saas daraadeed hal madaxweyne iyo golo wasiir iyo xukuumadooda socoto way xukuumad kala socoto wax kala sheegtana maana wasiirka ganacsigu Dr. Umar Shucayb muu oranin 19% baa laga jara sheerkii qarankeenu lahaa oo la siiyay Ethiopia taama oran 19% buu yiri laakiin wasiirku waxa uu qumaray inuu sii faahfaahiyo yira 19 kan waxay ka go'ayaan sheerkii DB lahayd